tuition fee ga fiirin doonaa. Non-EU student residing abroad. Non-EU student residing abroad can choose to pay the tuition fee according to one of the following options. Option 1 ka koowaad, based on the country of origin. There are 3 categories. Meeshan mid kasta marka listiga ku dhufatid waxaa kusoo baxayo listiga wadamada A, wadamada B iyo wadamada kaleeto. Lacagaha haddaa dhahda lacala scholarship baa hadda anaga rajadeynaya markaan helno warqada acceptance-ga in scholarship aan helno bay rajadeena tahay, laakiin waxaaba dhahnaybo anaa doonayo inaan iska bixiyo. Marka wadamada aad kasoo jeedid baa haddana maxay ahayd lacagta tuitionka loo qiimeynaa. Tusaale hadda hal mar waxaan furaa listiga wadamada ay ku jiro. Listiga wadamada ay ku jiro waxaa looga tixgeliyaa inay yihiin poor countries, wadamada faqriga ah. Fixed fee waxaa waaye 156 euro by semester. Semester kasta waxaa dhiibeysaa 156, aad u yartaa wallah. Wadamadaas ee salo wadankeena ku jira, Soomaaliya ku jira. Wadamada ay waxaa ka Afghan, Benin, Burundi, Chad, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Ghana, Sudan, Soomaaliya. Dabcan Soomaaliya wadan ku jirtaa. Haddii Soomaali Ethiopian aad tahay baasboor Ethiopia haysato kasa. Kenya ku jirta, Soomaali badan Kenya joogta. Tanzania ku jirta, maya Kenya biyo ku jirta. Sri Lanka, Soomaali badan jirto dalka Kenya joogto. Kenya waatana Kenya. Marka Soomaalida Kenyanka daa tahay idin watasaa biyo waaye. Talo ma qeyb bixinayaan biyo. Listigii biyo waxay bixinayaan 256 euro. Waa tuition fee gooda intaas waaye. Marka asiib baari karta waxaa kala dheeri hadaa u baahan tahay tuition fee gooda noocaas, laakiin anaga waxaan rajeynaynaa scholarship inaan ku helno.